ودن كيمت قلقوا محل هذا أباها مسؤولية كرهاي عرورته هاي نرشي جارك قرقة وان صوت ابني وحنمت ودن لغن كاسورنا وسن كجرين وحركمت مركا السهم الآن آد أترددن حق فاميلي جا وماذا كلو حلو نبغى بقولين مركا إن إسكولاتان حلا سيدا أرنكا حلو بجاري لها أنا قلت أنا واقع جابني فاميلي الصومالية مركا أكثر السنة هاي والبسدح عيال بيها يساق أنا مركو حاسس مرقة الصومالية ذا بلغات كودتهم بكو إجها إلا سدح دقوق بسه دو مركا محل هذا سدح عيال كبدا معانا أقرين وإسلا من كان إسكاعيري أو يعني عرب بدن بيوصل كادنا لن أنا مركا وفهم ومالو ساري وإيه دادك هذا ماشان السوقي وحن رضائنا عقلي انت عن اسئلين لهين ما هينا عقلي سيدا برابلم كان لوغو بحلها انت عن متكامل متك كلا فرطك فيق لهين وقت قالوا نوغو لمي لها صدق السنة وقت نوغو لمي ان قبيل بقبيل كلا فرطك فيقه ما هي سين ايديو عن كجب الدادي كرنو نباتوين كنجرة سيانا وقت لوغو لمين إلا اسئد ايدو قفك كلا فرطك فيقه سؤال فاتحان قباني كلية ترسل يا وما تنتهي ولا لا اي ولا لا محل هذا ترسل very good question ما عمر بكور مرة يسمي سؤال قديم اوكي سؤال كوباد دقيقة uga jawaabanaa waxa la yiri dumarka Soomaaliyeed markay maxkamadaha la aado ana waxa dhacdo ma garanaysaa labada qof ma garanaysaa in aabaha iyo hooyada inay custody ay wada leeyihiin labada qof ilaa caruurta iyaga wadan adduunka keenay ilmahan ay wada dhaleen aabayaasha Soomaaliyeed waxa ay dayriyaan markay maxkamadda la aado lagu yiraahdo ma 3 maalmood aad rabtaa inaad qaadato weekii ama 4 maalmood choice la siiyo inta badan waxay sameeyaan right-ka ay iyaga xaq u leeyihiin bay give up gareeyaan in badan waan ka hadalnaa ma garanaysaa dad far badan baa waxay yiraahdaan restraint order bay la siiyaa dad far badan sidee taas loo xalin karaa labada waalidna waxa loo baahan yahay in ay haystaan si ay caruurtooda u wada share gareyn karaan maxay kula tahay very labada waalid oo يعني la tartansiinayo ama la leeyahay yani way hooyada iyo aabaha may go'aanka qof baa iskale badbaadada caruurta qof baa iskale cid in looga dambeeyo ayaa wanaagsan yani challenge waxa la soo saaray waqti badan baa laga shaqeynayay in dumarka iyo ragga يعني waxa qabsan kartaa waa qaban karnaa ciyaalka waa hayn karnaa waa shaqeyn karnaa waa yeeli karnaa waxaas dhan isku wada qabanay cadaalad darrada wadankan bay kamid tahay in gabdhaha hadii caruurta ay haystaan kaligood la siiyo guri iyo cunno iyo cash la siiyo cadaalad darrada wadamadan yani reer galbeedka jira ay kamid tahay hadii aabaha loo dhiibo ilmihiisa oo 5 ah ama 7 ah ama 10 ah ama 2 ah waxa lagu yiraahdaa sheekh ilmahan meesha doonta gee وشقيسو waxba kuma siin gurina laguma siiyo food stamp laguma siiyo cashna laguma siiyo waa cadaalad darrada wadanka ka jirta Mareykan bas ba marka anaga saas ma aha wadankeena marka in general way gabdhaha waxay ma Europe gabaad ah in ciyaalka ayaga haystaan adduunka caalamka aad arkaysid walaalahayo waxa uu siiyaa wax walba oo yani khaladaad ah gabdhaha Soomaaliyeed ayuu faraha ka saaraa halka aabaha Soomaaliyeed aanay marnaba uusan ka helin cadaaladda reer galbeedka anaga wadankan joogno weydiin waxay ahayd sidee loo heli karaa aban gabadha baa waxay weydiisay aabaha 3 maalmood inuu qaato iyo 4 maalmood inuu qaato waa curyaamin hooyadu ay odayga ku curyaaminayso
in dhaqaalihii iyo maxaa la yidhahdaa xataa haddii ay gurigaa burburisay oo problemku ay u horseeday inuu intuu banaanka u baxo qabowga u baxo koleylka u baxo carruurtiisii uu teekargareeyo iskuulkoodii waxbarashadoodii uu ka bixiyo xataa waxa ay ku xujeynayaan marka inay maxkamadda geeyaan ay yidhaahdaan 2 maalin ama ha haysto ama 3 maalin ha haysto ama anaa 3 haysanaya asaga 2 ha haysto yani in mix laga dhigo oo aabuhu marnaba aan u helin wax dhaqaalaha oo ciyaalkiis ku soo burgaray ayada miyaa isla goynaysaa ma asagay lu goynaysaa mise awlaadeeday lu goynaysaa dabcan carruurteeday lu goynaysaa markii ay ku xirto maxaad tiri wuxuu u diidayay lugooyu ka baqayaa miyaad tiri hadda wuxuu 3 cisho u diidayo dhaqaalahoo ka yaraanayo lugooyu ka baqayaa baad tiri miyaa soo baxday habaarkii odayaashii ay macnaha aad u geysateen ma waxaad tiri hadda qaysow aabbaha wuxuu u diidayaa 3 beri islaanta ku lugoynaysa oo xagga dhaqaalaha ka lugoynaysa ku dhibaysa 3 beri haddii ilmaha uu haysto way ku dhibay dhib buu u arkaa miyaa sida percentage baa jira sida oo ay ku dhibaataynayaan waalidka hooyadu dhibaatada ilmaha hadday la haysto ma dhibaata ya ilmaha 3 cisho haddii lagu yiri soo hayso yani ma waxaa u aragtaa in la curyaaminayo ama dhibaato lagu geysanayo walaal hal ku dar waa labo ku darna waa 4 haddii aniga 3 casho aan hayo adigana aad 4 aad haysato adigu waxaad helaysaa full time a whole week of list waxaad helaysaa dhaqaalaheedii anigase biilka hooyada baa ii yaala oo sodohday weli waa sodohday oo aabaha baa ii yaala carruurtii baad wax sii laadahay sodohday walaal waxay sababta ii taalan ku sheegaya aabaha Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha oo ehelkaaga uu ku bixiyo iska daa oo ehelkiisa uu ku bixiyo iyo carruurtaadiiba intuba daaqaday ka baxayaan marka waa lugooyo oo aan loo geeday lugooyo aan loo geeday waxa la yiri waraabihii hooyadii cunay habeeratii uma nagaado waa aad dhashay ee ilaahay ka beeray ayaaba nimankii Soomaaliyeed ay dayaceen ma hooyada gabadheedu biilaya fiiri hadii aan imagination hadaan isku sheekayno fiiri hadaan imagination isku sheekayno iyo wax iyo fantasy iyo waxaan jiri waa gooni waxaanu ka hadlaynaa wax dhaca oo runa oo xaqiiqda ah aabihii diiday ee u baqay inuu dhaqaalihiisa hoos u dhaco 3 beri hadduu soo haysto I don't think so inuu gabar hooyad biilaayo that's wax waaye picture adiga ay haysatid aabaha markaad lugoysaan oo taraaga ka reebtaan oo aad taksiga ka reebtaan oo aad warehouse-kii uu ka shaqeysay taraaga ilmaha wad dhashay ilmaha korso dhibaatada adinka aad ku samaynaysaan idinma muuqato laakiin carruurtiina ku dhacaysaa taa doodaada waa gooni okay tarsan hadalkiisii baa ku darayaa oo wuxuu yidhaahday dhibaatadan sidee looga bixi karaa one way baa looga bixi karaa dhibaatada sidii Soomaaliya adiga gabadha ah oo daawanaya iyo adiga ninka ah ama wiilka ah ee daawanaya Soomaaliya ku dhashay hooyo iyo aaba sharaf leh ku dhaliyeen ku gardaadiyeen qaabkii ay uga bixeen oo ahaa hoggaankiina aabaha loo daayo baa looga bixi karaa period aabaha aan hoggaan loo daynin galbeedka kuma badbaadiyaan awlaad kuma badbaadiyaan soo kan adiga hadda la 3 cisho waa lagu curyaaminayaa Saudigan la 3 cisho haddii ay lagu siiyay 3 cisho maxaa go'aanba lagu siyaa 3 cisho ba diiday oo tir waa la curyaaminaya hadiyan waa ilmaha in aabahood xaqkiisii la siiya oo loo sii daayo next inshallah haye waxaan balukaadiya fiiri مع العمر okay taasoo wuxuu yiri waxaa jirta eedayn fara badan maxay ka imaanaysaa ragga iyo dumarkaba labadaba ka imaanaysaa raggiina waa waxay odhanayaan dhibaatooyin fara badan baa jira of course waxaa jira ragga Soomaaliyeedna dhibaatooyinka ugu waaweyn ee jira waxa weeye oo inta badan aan dadku ka hadlin waxa weeye marka hore Soomaaliya markaan joognay qofkii wuxuu arkayaa dumarka haya dad familiya ku agdhow muxuu ahaa ama eedadii baa ku haynaysa ama ayeydii baa ku haynaysa mucaawimo fara badan baa la heli jiray wadamadan markay halkan dadku ay yimaadaan waxaa dhacda ma garanaysaa mucaawimadii tirada badnayd ee ma garanaysaa ama dee walaasha ay lagu keeno ama in adeerta ay ku imaado in ay mucaawimadii oo dhan ay halkaas ka baxayso ay noqonayso marka labadii qof ee isqabay marka
is eedayn fara badanna waa jirtaa oo taasi marka hore waa wax jiro ma garanaysaa dumarka xitaa waxaad arkaysaa dumar grubyo furtay oo waxyaalo fara badan oo khaladaada xitaa ka hadlaya laakiin sidee loo wada baahan yahay dadkii oo dhan baa wada hadlaya dacwo naloo wada furay Facebook baan dacwo nalooga furay marka maxaad ka qabtaa sheekhaan ku soo dhaweynayaa garaale ahaado sheekh Umar Xasan aad baa umahadsantiin maasha Allah waxyaabahan oo dhan markaa fiirisay horta adduunkan yani waxaa la joogay dhul kale oo Soomaaliya la yiraahdo iyo Afrika haddana waa laga soo tagay meel walba say tahay unbaa loola dhaqmaa marka haddii shalayto ay haysteen faamilada maaragtay wax caawiya yani support system baa la yiraahdaa hadda markaad social work systemka aad ka shaqayso su'aalaha qofka la weydiiyo waxaa ka mid ah ma haysataa waxa la yiraahdaa support system wax ku caawiya oo ha noqoto dhan yani financial ha noqoto dhan maaragtay maskaxiyan ha noqoto dhan maaragtay advice ama counseling ha noqoto family ku jecel oo kugu taageero waxyaabaha aad rabto inaad qabato aad buu ugu yareeyaa waddankan support systemka qofka waxaa laga yaabaa keligii inuu noolaado reerka markay isguursadaan in keligooda isku xisaabtamaan oo dee qof kale maaragtay aanay ku xisaabtamin taa ayaa waxay baraysaa marka daruufta iyo danta ayaa waxay baraysaa hooyada iyo aabaha in ay caruurta waqti wada geliyaan maxaa yeelay dad kale oo ay haystaan ma lahan waxaa laga yaabaa sanadkii maroon inay u yimaadaan ayeeyo awoowi iyo waxaa in loo tago haddii waqtiga u saamaxo haddii kalena maaragtay ambulance arag haddaan ku noqdo marka qodobada ugu muhiimsan hadda haddii la yimid waddankan walaalka qodob fiican buu tilmaamay oo ah ma gabdhihii baa qaldan oo markay saddex dhalaan raba inayna wax kala dhalin oo laga yani nimanka iska ciriyaan mise raggii baaba maskaxdooda iyo caqligooda kusoo ekaaday saddex carruur keliya markay dhalaan ay maskaxda ka tagaan oo waashaan marka kolay aniga saan baa u dhigay hadalkiisa saa uma una oran asiga laakiin haddii aabihii saddex carruur loo dhalo ma maskaxdii baa isku dhaaxiyaacdo intaa ka badan ma korin karu leh waxoo dhan kasoo tag aabahana maaragtay la dhihin waa qalad buu dhinaca ka leeyahay ama hooyada ilmahan waa waajib labada saaran labadaba waajib baa ka saaran marka haddii uu mas-uuliyaadka la kala qaado oo hooyadana waxa loogu talagalay ay qabato ama waxa looga baahan yahay oo fudud yani inayna culays badan marin maxaa yeele waxaaba culays ugu filan yani ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana xamalathu ummuhu kurhan ووضعته كرها أما وهنا على وهن آيدي كله يعني أيضا بمعركة دباتوين فربضا صامرتي حنون فربضا دبر حنون يعني post stratum stress وحلي هذا stress آد يعني هذا بريها دبو حسابة فرين كأ قبل مركا أي أورك الله ذا أما مركا دشوا حالة أنا وحكينا أبيه يون أقول لهين سيد الله رقمه مركا هرمونز كيس بدلان قبل iyo hooyadiion yani xakameyn karin ama controli karin xilliyada hormoonka yani ay ku jirto marka dhibaato ilaa waagii Soomaaliya soo jirtay hadda xasuustaan Soomaaliya waxa laga yaqiinay waxa la yiraahdo walac hadda taqaanaan ama yani gabadha inay markay uurka qaato ay yani si kala dareento oo waxa ay u baahato ama jamato haddaan loo helin yani qaar baa waxa la dhihi jiray ma dhalayaanba ilaa sanad bay sii wadayeen يعني dhibaatada way jirtaa laakiin aabaha loo baahan inuu fahmo tan kale hal midaan aniga leeyahay daay walaalaha intooda badan ay ka dhawaajeen intan hadda commentiyada arkay waxaad moodaa wali dagaal inuu naga socdo oo dumar iyo rag taana aad ba looga fiican yahay maxaa yeelay haddii gabdhihiina ay soo dagaalamaan commenti ku dagaalamaan social media ka dagaalamaan raggiina ay sidoo kale ayagana soo qaataan seefahoodii yani midi ku taag umad laguma xaliyo waxa meesha ku dhamaanaya ku baaba'ayo waa dhalinyaro ilmahaaga inta yare uu teenage ka yar yahay waa maskax fayowdahay oo nolol fiican baad ku nooshahay maalinkuu gaaro teenager ayaa waxay bilaabato ciqaab iyo xanuun iyo walwal halkuu ku maqan yahay muxuu ku soo dhaxay iskuulkii halkuu yacni saaxiibo leeyahay dhibaatooyin fara badan marka yaa loo baahan hooyada aniga waxaan dhihi lahaa sida ilaahay ugu fududeeyay nolosheeda
iyadoo sidaa u qaadatay haddii samayso oo inay gurigaas ka fariisato caruurteeda iska xanaanaysato yacni waxa ay u qaban karto u qabato aabahana waxa waajib ku ah inta beri child support inaad aado oo lacag laga soo qaado iyo howsha yacni guriga ku hayso reerkana ku dhaxay aabahana ha shaqeeyo yacni waxa waajib ku ah inuu biilasha bixiyo guryahan section 8ka iyo dowladana hala kansalo oo yacni renti hala galo haddii kale waxay noqonaysaa yacni hooyadiina waxa bay ku nooshahay aabihiina taabuu isku haleynaya wuxuu leeyahay marka aniga mas-uuliyad badan ima saarno guri dowlad bay degan tahay furistan bay qaadataa waxa kaliya laga doonayo haddaan awoodo waan caawinay haddii kalena ma caawinay aaba taraag wado tareen wado ama wax wado wanaagsan oo lacag fiican haysta ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa ciil uu qabo hooyadii inaanu maaragtay wax qaban ta kale dhibaatada inta faraha badan ummadeena Soomaaliyeed haysta waa faqriga waa low income wax la yiraahdo haddaad taqaanaan dhibaatada ay leedahay low income-ka iyo xaafadaha low income-ka la dego yacni ma malaysan karaysaan waxaa idinku dhacaysa in caruurtiina ay la qabsan kari waayaan future-ka mustaqbalka Mareykanka ilmaha Mareykanka waxaa loo baahan inuu lahaado American dream wax la yiraahdo waa inuu ku koro inuu guri yeelan karo home owner noqon karo waa inuu ku koro inuu nolol yacni ka wanaagsan nolosha hooyadii aabihii ay kusoo koreen ka wanaagsan shaqo fiican nolol fiican si marka uu reer yeesho uu u yaqaano laba arrimood marka koowaad sida reerka loo dhaqo marka xigtana sida yacni waqtiga loo maareeyo ma laga yaabaa laakiin wadaad marka hore inta badan dumarka ayaa soo korin jira caruurta aabayaashana waa joogeen Soomaaliya laakiinse majority dadku inta badan muxuu ahaa waalidiinta rag dumarka ayaa soo korin jiray ma laga yaabaa society-geena hadda dambe inaan la qabsanin ma garanaysaa xitaa dadka wadamadan aan hadda ku noolnahay dhibaatooyinkaas way ka jiraan waxaad arkaysaa nin baa iska soo fadhiisanaya game buu dheelayaa mas-uuliyad darrada iyo muxuu ahaa rag fara badan oo Soomaali ah laga yaabaa inay game xitaa iska dheelayaan ilmihii aanday adduunkii baa isbedelaya ma fahantay raggii hore dadkii Soomaalidii hore iyo Soomaalida hadda jirta inay kala duwan yihiin faqri u dhaxeeyo marka sidee loo sixi karaa hadda xitaa gaalada wada aragtaa dumar fara badan iyo rag fara badan baa waxay ku kala tegayaan oranaysa ninkan aniga xitaa waqti ma siiya ama caruurta waqti ma siiyo game buu dheelaa ama kalabyadu aadaa ama baararku aadaa iyaga xitaa dhibaatooyinkaas ayaa haysata inaga wax kaliya oo na haysta ma aha marka sidee u heli karnaa xal ama aan u oran karnaa dhinacana waddankan sidoo markaa aan u heli karnaa xal wiilasha lagu sheegi karaa waxay soo xasuusay su'aal waxaa jirta family feud-ka gameka haddaad daawataan family feud-ka la yiraahdo su'aalaha la iska weydiiya waxaa ka mid ahayd xilliga yacni surveyga marka la weydiiyey 100 rag waxaa la yidhaahdaa ninka haddii uu saaxiibo leeyahay waxa uu ka hinaasoodo ama uu ka maseero maxay tahay saaxiibadiisa singalka ay sameeyaan waxay ku jawaabeen inay baararka aadaan asna uu aadi karin horta su'aasha yacni waa $1 million question waxaa muhiim ah marka uu reer leeyahay waa inaanu maaragtay u dhaqmin sida singalka waa inuu dareemo mas-uuliyaadkii shalay markuu singalka ahaa inay isbedeleen maanta maadaama ay isbedeleen wuxuu mas-uul ka yahay gabar doonaysa inuu aabbo u noqdo gabdhaha Soomaaliyeed ama muslimiinta waxay u baahan yihiin aabbo waxaa laga yaabaa badankooda inayna kusoo korin father figure adiga yacni xaas ka dhigtay intaad cadaawad u qaadi lahayd gabadha adiga aad dhashay oo kale ka soo qaad ayada naftirkeeda aabbo u noqo markaad aabbanimo tusto oo walaaltinimo tusto wanaag aad tusto yacni aad soo dhawayso shalayba jaceylkii aad kusoo guursatay oo habeenkii ugu horeeyay caruuska waa naqaanaaye farxaddii iyo qosolkii iyo saaxiibada iyo maaragtay aad ku farxaysay dad fara badan baa soo wacaya aan ku xidho sheekh waa runta waxaad ka hadlaysay father figure gabdho fara badan baa waxaa laga yaabaa waalidiintood ama aabayaashood inay dagaalka ku dhinteen aabayaal helin dagaalkii sokeeyay dad fara badan baa waalidiintood ku dhinteen marka waa laga yaabaa inay gabadhii ay ka raadinayso ninkani inuu
aabaheed oo kale ama dee qof nin u naxariista inuu noqdo iyagana laga waayo ku soco abaaya ku soco hello assalaamu calaykum waan salaamay calaykum assalaam adiga gabadha meesha fadhiso wiilka kale taqays in laha u malaynaya dhamaantii waa in salaam barnaamij aad iyo aad u qurux badan wadaan aniga waxaan dhihi lahaa fikradeyda horta sheekha hadaladii dambe uu ku hadlay waa wax reality oo jiro ani Canada ku noolahay waxaan arkay ilmo maxay ahayd guryo ceer lagu dhalay haddana ayagii ku guursaday waa Canadian fiiri dreamkii wadanka inay wadanka ku dhasheen inay wadanka wax ka qabsan karaan lama soo barin hooyooyinkooda aboodba maysan soo barin ma habartan waxay u fadhisaa ceer odagan wuxuu fadhiyaa ceer de ilmihiina beri markay weynaadaan ceer unbay u fadhiisanayaan ayagana sidii waaridkoodii hooyadu hali ratiga weyn ratiga yar sanqaadkiisu leeyahay taas waan arkay marka waxaan hooyooyinku baraarujin lahaa aabayaasha inay maxay ahayd oo la shaqaysto wadankan waxyaabo badan aan ka baran karnaa haddii anaga aan shaqaysan weynay oo maxay ahayd oo dantuna ceeshay oo luqadina ceeshay inaan isku dayno ilmaheena inaysan anaga camal aysan noqon because bari waa ka tageynaa cunugii hadduu anay igu daydo oo ceer u fadhiyo generation dhana iyo laba generation 3 generation waxaa laga yaabaa inay qasaaraan taas waa taas wiilkan walaalkii haddaa la kaftamo qays waxaa u malaynayaa qays inay ku jirto sheekadii oo waagii hore la dhihi jiray gabadha inta lasoo guursado dirac baatiga ha laga soo siibo iyosan guriga lasoo gelin beri markii ay caruur dhasho oo yacni ay maxay ahayd waxba gurigaas aysan ku sheeganayninna jawaan camal yacni qof meel wax lagu shuban jira camal oo wixii lagala soo baxaya berina keligeeda banaanka loo bixinaa sheekadii camal ahay madax adeegisaas camal ahaa ku jiro madax adeegaas camalna wallahi reero badanaa ku burburay Soomaaliya haddii la joogo dhib maba aysan ahaan lahayn laakiin wadamadan qurbaha reero badanaas waxyaabahaas madax adeegaas ku burburay oo caruur badanaa dhibaatooyin badan kusoo gaartay marka waxaan rajeynayaa gabdhaha iyo wiilasha in laisku sabro madax adeega la joojiyo gabdhuhun inay madax adeega joojiyaan raggan hooyadiis iyo aabihiis iyo hooyadiis maxaa la dhahaa iyo walaashiisa jikada u soo gali jirtay oo cuntadii soo siin jirtay oo jikada markuu soo galo waxaa la dhihi jiray warqaacayo san ka soo orina ka dheeraa camal jikada ninkii saas ahaay marka guriga ku imaado inaa wax si aayarku ugu sheegtid waay maahine haddii qabweyne aa la imaatid deyradu ka baxaya ilmahana waa kaaga tagaa waxaan dhihi lahay xasab raano su-aasha kaloo meeshan aan wiil aabayaasha iyo hooyooyinka aabahan mid baan dhahayaa hooyadan mid baa dhahayaa qurbaha waa joognaa anaga dhana u malaynayaa waxaa soo baxay cudur la dhaho autism cudur la dhahaa soo baxay soomaalidana waxay ka taagan yihiin 80% wadankan aan ku noolahay ilmihii soomaalida especially wiilasha cudur xaq ilaahay ka socdo waaye aniga laakiin markaan fikiray oo guryo badan aan arkay waxa ka jiro waxaan isleeyahay cudur dhan ilaahay ka socdo waaye laakiin waxaan leeyahay cunugaas dayac soo gaaray waaye gabadhu markay dhasho qurbo la joogo aabihii uusan caawinayn cunuga TV-ga loo dhigaa habartii telefoon ay ku dhagantaa odagina ma joogo cunugaas TV-giisu u fiirinaa waa ku tagaa hadhowtiyaa markuu 2 sano iyo 3 sano uu gaaraa waxaa la dhahaa cunugii ma hadlaayo meela socotaa waa ku socdaa dayacaasa aa jiro aabihiina waxaa aabooyinka Soomaaliyeedna ilmaha ma daryeelaan guriga xataa markay nala joogaan ilmihii iyo hooyadii gacan ma siiyaan habartiina telefoon ay ku dhagantaa markuu aabaha maqan yahay mas ayada isku mashquulsan ilmaha Soomaaliyeed oo qurbaha lagu dhalay dayacaad iyo aad u weyn haysto boqolkiiba waxaan dhihi karaa 85 ilmaha yaryarka Soomaaliyeed dayaca qurbaha ku haysto waayo hooyadii markay mashquulka tahay oo cunugu un caana iyo cunto inta la siiyo TV-ga la hor dhigo dee la sheekeysanahay cunuga wuxuu rabaa maskaxda in lagu koriyo aabbo wuxuu rabaa shirkiisa uu ursado oo la qoslo indhaha u saaro fiiriyuu rabaa hooyo wuxuu rabaa waqti geliso labadii uusan haysanin dee cunugu wuxuu noqonayaa caag beri markuu 15 sano gaarana
maxay ahayd hore gaangigiis ka galaya ilaa role model lan ma haysto aaba maqan oo absent ah iyo hooyo telefoon ku dhagan taasna way ka siman yihiin aabooyinka iyo hooyooyinka labadooda waa blame gareynaya hooyo kaligiina ma blame gareynayo aaba kaligiisna ma blame gareynayo way ka siman yihiin ilmaha waqtiyaa loo baahan yahay walaal ilmaha haddaad waqti gelin markay yar yihiin ee maskaxda aadan ka dhisin bari markay weynaadaan ma soo celin kartid waayo geedku markuu waxaa la dhahaa yar yahaa la toosiyaa soo maho hadduu weynaado waarun xarka markaas lagu xiraa la toosiyaa hadduu qolocsamo exactly labadu waxaa ka dhihi lahay ku soco waarun su-aal baa gabadha rabtaa inay ku weydiiso naqwo haye waxaa weydiinaa sheekha okay sheekh ma weydiinaysaa haye waa baa ku soco raalli waa ku socon kartaa marka waxaan dhihi lahay in la isku sabro waaye raggana hadde waxyaabo badan kama dhahayo qays wuu xanaaqayaaye qaysow inaad yaro gacli ragga naga daayo hal isku sabro xoogaana jilaaca isa soo jilciyaan raggeena waa rag aad iyo aad u sharaf badan inkasta anaga dumarka Soomaaliyeed ma qurbe iska daa weligeed hooyaa rarneed waa la ogyahay taas weligeed iyo allaheed hooyaa rarneed ilaa hadda qurbaha dadka jooga iska daa noocay bay haystaanbo Soomaaliya laba xabo nyaaya ilmuhu koriyaan aaban ma joogo marka raggeena Soomaaliyeed meel aniga aadna malahan waxaan idin rajaynaynaa inaad dabacdaan inaad haweenkiina daryeeshaan inaad awlaadiina daryeeshaan hadda dadkan qurbaha ku nool oo ilaa 25 wixii ka hooseeyo waxaa waaye ka kac taasna waxaan aaminsanahay inay ragga iyo dumarkaba u siman yihiin laakiin 80 waxaan saarayaa ragga mas'uuliyadooda inay gabeen aad iyo aad marka quruxda badan waniga mahad celinayaa waxay tahay wixii igu jiray intii aan dhihi lahay waan dhahay maasha allah in kaleetana waan celiyey marka khayra in yarjeena kulligiin thank you so much waad ku mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan anagu xitaa wax saxno labada dhinacba labada dhinacba aan iska toosino waxna Facebookna dadka oo way wada fadhiyaan waxa la rabaa muxuu ahaa eed baa taale eedaas inaan insha Allahna aan wax ka bedelo ma garanaysaa dadkii iyo caruurtii iyo caruur far badan baa jeelasha aadayso waan ku mahadsan tahay abaay macaan insha Allah hay walaal macaan ciao Umar aan weydiinayaa su'aasheeda ka jawaab iyo hadalkeedii go ahead qodobana hore hadaa loo sheego dadka aad ula yaabaneen baa Shaafici Ahmed uu gadaal ka soo qoray wuxuu yiraahdaa hooyo iyo aabe markii horeba aniga igu tiirsanaa oo xaaska aan qabo oo kale ay yani iyo caruurta sidaan u daryeelayay markii hore waan u daryeelayay oo anigaba igu tiirsanaa suuragal maaha inaan isku dhac iyo maaragtay problem gabadha la timaaday inaan sodohday iyo soddonka ku gooyo mar walba qofka kugu taagan oo ku taageersan oo yani taageerahada u baahan inaadan ka goyn karin waa ayad baa ka soo degay waxaan malaynayaa in qofka maaragtay gacantaada ku jira qofka gacantaada ku jira oo aan waxba haysanin uma goyn kartid maxaa la yidhahdaa qaladaad qof kale uu sameeyey haddii xaasku ay qalad samayso oo gurigii ay baabi'isay hooyadeed iyo aabaheed oo dalkii jooga oo ilmahayga awowgooda ah oo ayeydooda ah in dumarka qaar ay yiraahdaan caruurtaadii baad daryeeli weysay ma hooyada iyo aabahay baad daryeelaysaa hooyada iyo aabaha mar walbo kaliya laab kalgacal baan u hayaa waana waalidkay sida waalidkayga u daryeelayo oo haddii aan gabadha kala tagno aanan waalidkay aanan u dayicin oo aan u goynin ayaan si la mid ah xaaskayga waalidkeeda aanan u goynin cidda keliya laga helaana waa nin Soomaaliyeed ay kula tahay hadalkeeda aad buu u fiicnaa laakiin waxaan ku darayaa waxay tiraahday hala gorgortamo hala wada hadlo culayska halku ka imaanaya waxa weeyaan hala wada fadhiisto hala wada sheekaysto hala isla hadlo dumarka hala tashado gabadha waxay ka wadaa aayad iyo xadiis iyo uma haysaan in dumarka iyo ragga marka ay timaado hawsha guriga iyo mustaqbalka iyo caruurta wax la dhalay halka la aaday isla meel lagu gorgortamay oo ay leeyihiin dumarka waa in lala tashadaa inay jirto marka naga daaya dumarka aad nala tartan siinaysaan
guriga gabadha waxay ka wadaa marka gabadha waxay ka wadaa maadaama ilmihii laakiin inay tiraahdo hala tartamo oo gabadhii wiilkii ha wada hadlaan arrintii taas inay xalaal tahay haddaan hadaltay xal lagu gaaraya hadal wuu jiraa laakiin wada tashi ma jiro walaal gabadha waxay ka wadaa maadaama hooyadii telefoon ku dhegan tahay wiilkii ninkiina uu absan yahay waxa meesha ku baaba'ayo autismka ku dhacayo waa caruurtii waa mawduuc kale dhowr qaybood bay ahayd laakiin shiiqa aniga su'aal wadaa ciyaalka telefoonada ku jira youtube-ka daawanaya iyo facebook iyo snapchat-ka ku jira ay leedahay autism baa ku dhacay taa waa la qabaa waa soo dhaweynaya haye waaye telefoonad fara badan baa noo soo dhacayaan dadka aan chance siino ku soco walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد جوهر إذن كسو وعيا دلك UK أدبان وفرح سنة هاي والالك أدبان ومهدين إياه إنه يسوقد بيو وحرجيني إن مرتدى هذا قيمها بدن لأي مغليس إن شاء الله تعالى سفي عن ولا الكسعة أدبان ما هتسنتهين حوغي وحير بان إذن لسعود إذن دقيساني مركاد بان إذن سامية عبد الرحمن ويفكريني والجيرة مركاد جزاهم الله خيرا شيخي كبدنا والسلامية كلي أرنتا لغاها اللي أنا إنتان كفهمي وحان إسلاي هاي قويسكا قربها كنول فاميليا إن لا إسكور صدب دبكا جرا إن لا إسبرارو جيو مركا وحان طبعا مركان فيريو هذا اللذا قاركود وحد مودا إن واقعة إيو ماركتي environment كاللي قلنور يهي مركة قاركود إن لإسمود سينيو وحينو نهاي داد آنان لوسو ديارين طبعا قربة إني كنو العالان يغو أكو قصبان كوي من سداس تامعني هيدو كمان دقنا إنا نسديبنو أو ماركتي آنان dadka waxaan ku idhaahdaa aan la noolahay aan la falgelin ama aan ka qayb qaadanin nolosha aniga waxaan aaminsanahay ummaddeena Soomaaliyeed the most resilient community in aan nahay oo maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin badan u jilib dhigay waxyaabaha inaga dayacmay waxay qayb ka tahay runtii yacna darbaaxooyinka caalamka marka ay jaaliyad ama meel ay ku dhacdo qaarna waa ku dhimanayaan qaarna waa ka badbaadayaan waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waxay u baahan tahay inaan fahanno environmentka aan ku dhex jirno siduu yahay waxaan moodaa inta badan in dacwada sida saaxiibkii cabdiraxmaan uu dhinaca gabdhaha u riixo inta badan gabdhuhuna ay iska soo riixaan oo ay ragga u riixaan waxaan anagu soo jeedinaa runtii in ninka iyo xaaskiisu ay isla fadhiistaan la iswarsado waaqicii aan ku kornay maalan dad generation kala duwan baa meeshan jooga generation waaweyn oo iyaga oo 30 jir qabti ay ugu dhacday 90kii maantana ay dhici karta 60 jir inay yihiin ilmahoodii ay maanta noqdeen kuwa reero leh marka dadku aad bay u kala duwan yihiin generationaduna way kala duwan yihiin however waxaan isleeyahay generationkii hore bay generationka yari wax ka baranayaan ay wax ka arkayaan gabadhu aabaheed markay guriga aragta asagoo ka maqan ama maaragtay hooyadeed ay maaragtay isku dhacsan yihiin ayaduna waxay ku koraysaa somehow niyad jabka wiilku sidaas la eg markuu arko hooyadii oo maaragtay aabihii uu la dirirsan yahay oo hooyadii aabihii oo is haysta isaguna niyad jabka buu ku koraya waxaa isweydiin la marka u baahan runtii in study laga sameeyo imisaa burbursan imisaa successful ah inta badan inaguna cabsi ina haysa darteed ayaad moodaa wax badan in negative-ka laga hadlo marka aniga waxaan aaminsanahay in ay jiraan positive tiro badan aad badan guryo qurux badan rag aabayaal iyo hooyooyin isla jooga aad u badan laakiin nasiib darradu waxa weeyaan majority-ga positive-ka they are silent maxay uga faa'iideyn waayeen dadka kale maadaama ay jiraan inay positive fara badan ay jiraan waan ognahay inay positive fara badan ay jiraan maxay ula sheergareyn waayeen dadkooda kale gaalada hadda wadamadaana ku nool nahay dadka kale way sameeyaan si ay uga badbaadiyaan bulshaweynta kale oo kale
there is some sort of myth waxaa jira waxyaabo la iska dhaadhiciyay ama la iska qufulay ama cabsi la isgeliyay society-gan waxaan moodaa inay cabsida u badan tahay in cabsi la faafiyo waxaa ka mid ah masalan haddaad nicmadaada haysato aad soo bandhigto waa lagu ilayni ilbaa kugu dhici nicmadaada iyo wanaagaaga iyo jacaylkaaga iyo khayrkaaga iyo waxaad haysto gurigaaga la fadhi shibdhe cid baa waxaa tusin taasina waxay ka hor imanaysaa mararka qaarkood sunnada iyo dacwada iyo diinta iyo islaamka wuxuu ilaahayna faray ilaahay subxaanahu watacaala waxayna farayaa nicmada aan haysanay iyo wanaaga in aan dadka la sheergarayno na wadaagno waama binicmati rabbika faxadis marka waxaa dhibka in haystaa taas ah ilbaa igu dhici ilmaha la iga ilayni maxaan ku dhahdaay waa la xasdi waa la sirxi balaaye jin baa isku akhrina taasaa keentay dad badan oo wanaagsan oo fiican inay aamusan yihiin oo guryahooda ay ku jiraan oo waxba aynan kula wadaagin marka qaar waa mid ka mid ah yani waxyaabo kalena way jiraan waxaa ka mid ah maaragtay in ay too busy yihiin mararka qaarkood markaad ku tiraado war khayrkan iyo wanaaggan aad haysiin dadka la sheer gareeya waxay ku leeyihin we don't have time for it okay marka waxaa marka laakiin u baahan runtii culummadan ilaahay khayra siiyo aad bay u dadaalaan aqoon-yahanadu way dadaalaan laakiin waxaan ku dhex jirnaa badi naga badan walaalaha iga raali noqda badda aan ku dhex jirnay qurbuhu waa badi naga xoog badan waa bad aynaan u diyaar garoobin la ina barin aan su-aal idin weydiiyo dadkayna dhegeysanaya ama ina daawanaya ma jirtaa marka laga yimaada wax kasta oo dhan wiilku markuu koro gabadhu markay korto jaamacad marka laga soo baxo marka guur la galayo weli ma aragteen ama ma maqasheen in la yidhaahdo guur baan soo baranayaa wiilku inuu yidhaahdo gabadhaan soo baranaya gabadh sideen ula dhaqmaa inaan soo bartaan rabaa gabadhu ma ku fikirtay weli ninka aan guursanaya waxaan rabaa I need to know how man's maxaan ku leedahay mind sida u shaqayso maskaxda ninka soo kuwan hadda laba la cawriyaaba dadku sheegi lahaa the least thing aan barano hadduu jirinba the least thing ay dadku isweydiiyaan waxa weeyaan about relationship hadda haddaad weydiisay dadka qaarkood international relationship baa lagu dhihi ayaan bartay siyaasi baan ahay aqoon-yahan baan ahay PhD holder baan ahay well actually you're not PhD holder in family relationship waxaad u baahantay marka inaad soo barato family relationship see loo wadaa okay aniga waxaan oran lahaa yaanan iscanaananin inta badan jeedalaynta inta la iska yareeyo dhalinyaraduna waxa ay saanqaadkooda leeyihiin waalidkuna nasiib darrada ku dhacday waxa weeyaan dhaqankii iyo culture-kii iyo dhulkii ay ku koreen ee nabadda u ahaa ee yaqaaneen way ka yimaadeen oo meel kale ay ku koreen dadaal bay ka tahay the least thing ay samaynayaan dadaal bay ka tahay laakiin dee way ku fayaan iyagu waxaan markaa soo jeedin lahaa xaqiiqda waalidiinta ee dhalinyarada aqoon-yahanka in subjectigan familiga la siiyo maxaan ku idhahdaay priority la siiyo interest gaar ah aanan kubadda dhinacyada loo ridini la wada fadhiisto gacmaha inta la isqabsado waxa naga dayacmaya waa maaragtay ilmihiini iyo generationkiini mustaqbalkeeni baa dayacmaya waa dhiiggiini baa socda marka waxaan u baahannahay dhiig qabab in la sameeyo waxaan kusoo koobi lahaa xaqiiqatan ilmaha la rabo American dreams in lagu beero aabihii halku joogaa aabihii ma aaminsan yahay American dreams and I'm afraid I don't think so hooyadii ma aaminsan tahay waa weydiiyo audience unless annaga laftigeenu aan aamino weli odayaasha waxaan ka bilaabaya cabdiraxmaan qoys khayr allah siiyo aad buu ugu dadaalaa abayaashana maaragtay garab weyn buu yahay waan taageersanahay dhinacaas hooyooyinkana waxaan rabaa gabdho sidaas oo kale sida cabdiraxmaan advocate u sameeyo hooyooyinkana in la helo laakiin xaq ku toosan ma aha inay doodayaan waxaa kusoo koobi lahaa marka cabdiraxmaan amuu berri socdaayo xildhibaan soomaaliya u doonta hadda farmaajo shalay wuxuu idinla joogay moogtahay New York maantana Soomaaliya president ka yahay
معناها there is nothing wrong in president ka noqdo waliba waxa leeyahay wax fiican khibradda dhulka laga qaaday in dhulkii lagu celiyo laakiin iyaa looga tagayaa generation ka halka jooga that is my argument generation ka la rabo inay noqdaan American dream inay qaadaan British dream inay qaadaan kuwii annagana bedeli lahaa kuwii mustaqbalkeena bedeli lahaa our future generation sidee yaan ka tagaynaa way su'aashu taasaa su'aashu ay tahay waxaan u dagaalamaynaa inagoo dhan waan wada tegaynaa baa laga yaabaa caruurtaan ka tegaynaa haddii aan hadda aan daba qaban weyno yaan ka tegaynaa way su'aashu that's the thing gabdhaha anagu waxaan leeyahay hadhigaan budka iyaguna dhulka odaygaan ha fahmaan odaygaani in uu maaragtay protector yahay in gabadhu sharaf ay ku leedahay oo maalinta uu ninku ka tago waraabo kasta afka usoo kala qaadaya gabadha cidlay kusoo dhacaysaa mararka qaarkood kama wado in ay gabadhu maaragtay mar walba ninka ay hoos joogto uuna ninku u yahay wax walba dhinac marka laga fiiriyo maya anigu waxaan rabaa laba qof oo labaduba maaragtay active ah labaduba xoog badan labaduba hadduu midka kale uu ka maqnaado ka kale labadii isku qaban karo marka gabadhu waxay u baahan tahay fursad inay hesho nimankan u sheegaya gabdhaha fursad ma siiyaan de luqadu ma ogolaadaan inay soo bartaan inay baxaan ma ogolaadaan iyagu laakiin waxay ogol yihiin inay majliska tagaan inay maqaaxida tagaan inay maaragtay socialize soo qaataan inay politics ka sheekeeyaan caruurtana inay gabdhuhu u hayaan ogow marka odayga Soomaaliyeed ama ninka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool gabadhaadu markay mar walba guriga ku joogto oo aynan helin fursad ay banaanka ugu baxday wax ku soo jaamacad ku aado in socialize ay samayso ogow she's not going to be healthy waxaa la yiri gabdhaha ugu caafimaadka badan waa gabdhaha nimankoodu ay dhageystaan at least guriga markay ugu yimaadaan marka gabadhu 20 kun oo kalmadood bay maalintii ku hadlayso ninka ka baxsanaya kalmadaha ka ee ka dhumay okay sidaas waa la kaftabaya Cabdixafaar waxa la mid ah gabadha ninkeedu markuu soo galo isagoo madaxu xanuunayo oo daalan oo banaanka ku soo daalay oo stresskii shaqada guriga markuu ku soo noqdo qaylo ay ka hortimaado it's not going to come back to you guys kuma soo laamayo kaasi carari oo kaasi baxsan mid kala u sheekayno soo dhaweeyni markaas aad qarxi doontaa adigu salaam labaad buu bilaabay gabar labaad buu guursaday meel adaa qayb ka isma weydiino rag iyo dumarku isma weydiiyaan what is my contribution to this problem maxaan ku dhiisay mushkiladan aniga iyo xaaskay maxaan ka gidi isma weydiino unfortunately marka waxaan oran lahaa oo ku soo koobi lahaa iga raali noqdo in wax la barto in la isbarto wiilasha iyo gabdhuhu inay isbartaan sida loo baranayo any other maxaan ku idhahdaa subject ama matter in loo barto marriage iyo family khaasatan ku noolaanshaha qurbaha in loo barto sidaan u wanaajin karnaa marka there are opportunities in la aado koorsooyin in la aado seminars in la aado training especially when it comes to religion in diinta si fiican loo barto diinta dhaqan baanu haysanaa Soomaali haddaan nahay diinta waan ilaalinaa yaraal noqdo waa caadi I agree with you that one. Thank you. أدد ما سنتين أحباب أمي أدد ذي جعلها. كيف قام ويديني هل سؤال بس أنا سؤال شيء أنت إلا على هبة عمر مركا دمانتين أدد ذي سلام يا هب فاميلي أكاديمي ذي سلام يسا. ملك استوديو كتير جيسك أفريقيا قربها وما سنتين. وما سنتين ولا أنا حق وأنا تكون ما سنتين عندك لا قيب قاعدته إن شاء الله أنا نبركها جواسيف كرسنا يا aqligaaga si fiican ayaan ugu qanacay saaxiibkeena waan galay waa aywa alaykum salaam aywa salaam alaykum salaam okay naqa weydii macallinka su'aasha macallinka waxaan weydiinayaa maadaama uu macallin yahay sheekh yahay ma sha Allah oo xagga diinta cilmi badan u leeyahay مسؤول انتلك أي دينتين إسلام كسرتي عبها ما شاء الله ولا شاهد بيوم ما سنتهاي أرجع عبا مركي اللي هذا و يعني آد بوبا حدوين هاي مركو حلو باهي هاي عبها حتى حصوق لا في عربي أوجا هي عبا صوق لا
marka aabaha carruurta kula dhalay haddaan kasoo qaadno oo kale xaaska iyo yani labada qof is qaba kan aabaha ah aabaha mas-uuliyadda reerkoo dhan baa saaran reerka markuu dhisan yahay tusaale ahaan oo kale guriga markuu dhisan yahay saqafka kore iyo afartiisa deer marka la xisaabinayo aabaha afarta deerna uu yahay saqafka korena uu yahay marka waxa ku dhex jiro dhanna asaa mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay maalinka gabadha loo soo xirogeliyo gabadha waxaa koraya marka waajibaad ah inay ninkeeda adeecdo inay ma aragtay ilaaliso hantidiisii inay ilaaliso ma aragtay nafteeda inay yani carruurtii waxaasoo dhan baa soo geysa marka mas-uuliyadda aabaha uu leeyahay yani 100% way ka weyn tahay mas-uuliyadda hooyada ee aabaha marka mas-uuliyaddiisa aad bay u sareysaa haddaad fursadii siisaan I hope inaan ka jawaabay su-aashaada يعني imika waad sheegtay hooyada mas-uuliyadda la saaray inay adeecdo in ay ninkeeda dhaqaalaha u ilaaliso isaga waajibka alla saaray oo sidaas oo kale aad u pointi garayn karta ma jiraa oo aad leedahay waxa ilaahay ugu talagalay inuu sidan qabto dabcan waaba waxyaabaha ugu weyn oo quraanka ka hadlay sunnadana ay ka hadashay waa in aabaha marka koowaad uu isku dayo in masruufka reerkaas يعني وحول الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيسي كفى بالمرء إثما أن يضيع بمن يعول حتى إنه ضيعه عروتيسي أو مفرشية إسكفريستو قاتك إنه إسكفريستو مالا ما أركت اللوعة ويو ورير كيسي ضيعه ضيعات ده مركا ما مصروفك كليا سوق لي مي وحا سوق لي مصروفك مرشدي تربيتي إيو يعني تعلينتي أنت صدان أيو أباه مسؤولك إنه عروته وحبره حتى قصدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيه يعني صدع وذي المهي إنه كعاسي كدبنا مركي يعني محكمة الله سوي استاجي أي عادات إن أباها وعاسيها أنت أنا إلمها عاسي نقول مركا يعني دينته وحين برسا والدك إن أنا يعني كحد قد بين عروته هذا مركا أي دورانيان هو يدوت كسوقات مركا أي عروت الدلان إني وحبران marka ay carruurta yani korinayaan inay si xanaanadoodii iyo wanaagoodii masruufkii loo baahnaa ay u keenaan ay waxba ka yani qayaanin inay u istaagaan carruurta badbaadadooda adduun iyo aakhiro marka aabaha waxaasoo dhan baa saaran markay kala tagaan diintu iyada ma sheegtay markii hooyadii aabaha kala tagaan oo aana isqabin mas-uuliyaddiisa qaaska ah uu qabanayo carruurta wain yatafarraqa yugni allahu kulla min sacati haddii horta la kala tago midba ilaahay sibuu gaar wax u siiya laakiin ninka waxaa la faray marka ay kala tagaan masruufka gabadha ayay weli ku leedahay carruur maadaama ay joogaan waxaan hadda dowladda islaamka yani laga soo qaatay oo ah gaalada isticmaalaan oo ah child support system child supportka wuxuu ka imaaday islaam aabaha markay gabadha kala tagaan waxay ku leedahay xuquuq ah in carruurta uu yani ku masruufo hadday tusaale biil bay ku leedahay oo ah in carruurta ma aragtay waa usoo soconaa in ilmihii waqti u geliyo ukaadi yani biilka ay ku leedahay waa haddii xataa lacal ay tiraahdo ilmahan aan nuujinayo ma aragtay hadday xanaanayso ilmihii carruurta yani ilmaha ay xafaayadaha ka bedelayso ilmaha ay waqti gelinayso hadday tiraahdo timekayga waa lacag waan iibsanayaa waa waajib aabaha inuu lacag ku siiyo gabadha waa waajib inuu lacag ku siiyo hadday codsato ayada laakiin curfiga iyo macruufka ayaa waxaa na tusayaa in hooyooyinka yani jacaylka ilaahay ku beeray daraaddeed aynay yani waxa ku dhaqmin oo ay ka xishoodaan marka sidaa daraaddeed waxayna tusaysaa aabaha marka uu masruufkii bixiyo waxaa meesha soo gelaysa ilmihiisii inuu ka badbaadiyo naarta haddaan muslimnahay quu anfusakum wa ahliikum naaran dhibaatada haddana haysata marka qurbaa waxay tahay aniga tanna waa ku celcelinaya haddana yani si fiican dhagaa u fura cabdiraxmaanna wuu maqlaya aabaha Soomaaliyeed sida uu fadhiyada mafrashada u fadhiyo ama meelaha yani maqaaxidaha uu u fadhiyo hooyo Soomaaliyeed uma fadhiso gurigay dhex fadhisaa inta badan ama ha qaldanaato carruurtii ha dayacdo ama taleefon ha ku jirto inta badan yani waxa laga yaabaa marmarka qaar inay aroos aado kuwa qaar ay arooska aadaan ama qaraabo solaan ay aadaan ama shaqo ay aadaan laakiin inta badan carruurtii guriga la fadhiyaan maadaama ay sidaa tahay aabaha mashfarashada fadhiya haddii la yiraahdo waxbuu ku sugayaa saan buu yeelayaa intuu
ani waxaan aaminsanahay aabbo walbo inta uu waqti rag kale iyo fadhi ku dirir iyo maqaaxid u gelin lahaa in reerkiisa uu geliyo caruurtiisa u soo labiso masaajidi keeno xataa hadday kala tagaan hooyada inuu guriga yani parkinka soo istaago maalmaha khudbadoo kale caruurta ay soo labistaan ay soo raacaan aabbahood ay masaajidka isla tagaan maqribyadii oo kale cishaagii oo kale inay salaadii subaxdii oo kale inuu caruurta soo kormeero uu ka warhaayo diintoodii qur'aankoodii uu la socdo waxbarashadoodii iskuulka uu la socdo dhibaatooyinka haddan haysta ma ka jawaabay su-aashaada waxaan rabaa qaybo kale inaan u galee aad iyo aad waad ka jawaabtay inuu xag dhaqaalana maaragtay ay mas-uul saaran tahay 100% xag akhlaaqiyan iyo xag diinna mas-uul ay ka saaran tahay iyo baahida uu qabo saas aday ku jawaabtay haddii uu dayacana in dembi ay ugu filanta dembigaba inta kaabaaba dembi ugu filanba hadduu wax kale ku darsado kasii yani waba kasii daran tahayba marka haddii aan u galo marka waxaa muhiima inaan isla fahno arrinta ah aabbayaasha yani haddaay mar baan rabay inaan ka tilmaamo walaalaha waxay weydiiyeen aabbayaasha maxaa looga la'ayaa maxkamadaha cabdiraxmaan baa ka jawaab wuxuu yidhi hooyadii yani carruurta isku dhadhejisay ayaa qaladka iskale anigu waxaan leeyahay hooyo waxay isku dhejin kartaa malaha haddii xataa ay dowladda maraykanka yani ay iskugu dhejiso restraining order ku siiso ilaahay wuxuu ku siiyey awood ah inaad dagaalanto awood ah inaad lawyer qabsato awood ah inaad dib ugu laabato inaad ilmahaaga u dagaalanto ilmahaaga haddaad dayacdo maanta oo tiraahdo hooyadood baan u daynayaa ayadaa ii diiday wax dhacaya ma laha ilaahay awooddaas wuxuu yiri aan kaa dhexgalo macalin qays wuxuu yiri hooyada waxay ku xanibaysaa aabbaha maadaama oo 3 beri la yiri aabbaha ha qaato 4 berina hooyada 3 beri aabbaha ma qaadan karo kuli waayo hooyada waxay helaysaa guri free ah oo dawladda caawimayso cayr siinaysa aabbiina waxba lama siinayo halka waxa ku dhaawacmaya buu yiri dhaqaaliga pointiga soo wada halka waxbaan ka leeyahay ani waxaan u shaqeynayay social services qaybaha housing haddana waxaan ka shaqeeyaa health care yani county-gaan u shaqeeyaa so aniga inta aan la shaqeeyay Soomaali iyo dad gaala ah ayaaba hadda alxamdulillah experience ugu filan inaan arkay aabba single father ah caawiyey aniga gacanteeda ku caawiyey oo aan guri dejiyey isigii caruurtiisa yani dowladdana ka qaadanayay lacag day care-ka ma aragtay child care-kana laga bixinayay inta uu shaqada aaday oo xataa marka ma dhici karto meelnana kuma qorna in la yiraahdo aabbaha waxba laguma siiyo oo dowladdan dumarkay u naagaysaa ama ay yani u namlaysaa waxyaabahaas oo kale ma jirto no dowladda maraykanka opportunity-ga waa looga wada sameeya any father xataa waxaa jirta child support system-ka waxaa ku jirta haddii hooyada ay caruurta ka tagto aabbaha uu caruurta korinayo hooyada laga soo qaadaa child support so there is no point lagu dhahayo yani aabbaha unbaa dulman no ma dulmana ee aabbaha Soomaaliyeed haddaan ku leeyahay asaa isdulmiyey asaana dhulka isdhigay asaana caruurtiisa ka tagay he walked away reality haddaan ka hadla asaa ka tagay caruurta hadday dembi galaan oo ay wax xadaan aabbaha ay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu lacag siiyo inayna wax xadin inuu ma aragtay xanaaqa uu qabo hooyada inuu ma aragtay caruurtii kula kaco qalad adduun iyo aakhiro asiga loo xisaabtami doono hooyada waxay doontaa haato nimankay doontaa ha guursato waxay doontaan ha samayso caruurta wiil iyo gabar adaa mas-uulka adaana dhalay adaana lagugula xisaabtamaya hooyada wax la weydiinayo male aan ka ahayn maxaad u dayacday mas-uuliyadda ayada la saaray oo xanaanada ah haddii laakiin wixii ka dambeeya oo tarbiyaad ah tacliin ah aabbaha la weydiin doonaa marka tan kale pointi muhiima uu ka dhawaajiyey sheekh axmed jawhari allah barakeeyo wuxuu yidhi Soomaalida waxay u baahan tahay daraasaad in laga sameeyo familiga iyo ma jiraan dad yani ku oranaya waxaan soo baranayaa guurka ma jiraan laakiin waxaa jirta waan idin leeyahay wadamo annagoo kale nala midka ahaa oo qurbaha soo galay maraykanka soo galay sida Pakistaanka oo kale Hindida oo kale Asiaanka oo kale kuwa muslimiinta gaalada iska daa muslimiinta ka hadlayna ee qurbaha soo galay dhibaatooyinka haddana haysta first generation Soomaali ma qabatay yes way ku dhacday Soomaalida dhibaatooyinka hadda haysatay caruurtoodii oo ma aragtay xabsiyada ku aruuray dhaqankii oo la bedeshay gabdhihii oo ma aragtay xijaabkii ka tagay qaarkood raggii oo ma aragtay qamrada bartay runta ka hadlaynaa rag Soomaali oo badan waxaad arkaysaa qamriga aad u caba oo ku faanaba
marka waxaas oo dhan waa dhaqan gadoomay oo rogmay loo baahan in laga hadlo marka dadkii hore maxay ku badbaadeen ani waxyaabahan research ku sameeyo oo aan kala sheekaystay dadkii hore waxaa ka mid ah inay isku dayeen inay xoogga saaraan education wax la yiraahdo education tacliinta waxbarashada carruurtooda waxay u badan yihiin lawyers engineers doctors iyo IT inta laga helo Soomaalida generationka soo socda hadii inta laga helo faqrigana way ka baxayaan low income kana way ka baxayaan baahida iyo xabsiyadana way ka baxayaan wiilka Soomaaliyeed hadii loo koriyo sida Cabdiraxmaan uu suudka u wato inuu u koriyo wiilkiisa hadii xataa aanu la nooleyn bari uu xirnayaa suudka laakiin hadii uu koriyo ama hooyadii uu daayo ama uu dayaco barina qiyaamana waa lagu weydiinayaa surwaalka dabada haduu ka xirtana adaa mas'uulka ma sha Allah lagu dhigi karo yani wax ma jiraan and I agree with you but laakiin se waxaan maraynaa maanta waa runta dadkeena way u baahan yihiin ani marka hore high school baan halkan ku soo qaatay dhalinyaro fara badan baa jirta oo muxuu ahaa dhibaatooyin fara badan inaga waxaynu nahay in denial society waxaan nahay in denial aanan aqoonin ma garanaysaa qofka bini'aadanka wuu ku fikiraa wuu dhici karaa balwad buu yeelan karaa sigaar buu cabi karaa qaad buu cuni karaa khamri buu cabi karaa everything ma aha qofkani wuu kufaye hal race gareeyo ma dhici karto taasoo kale markaa waxay keeni kartaa markaa in loo sameeyo dadka ay fahmaan society-ga ay fahmaan dad fara badan baa waxay la yaabayaan khamriga la yaabayaan dad fara badan baa Soomaaliya gumaadaya oo odayaal qabyaaladeed baa waxay gumaadayaan bulsho dhan marka waa in la eega dembiga inaga marka qaarkood waxaynu eegnaa dembiga iyo sida uu yahay waa in la eegaa ilmahan sidee lagu soo badbaadin karaa sidee baan u samaysan karnaa community u shaqaysa dadkeena masaajido u shaqeeya dadkeena oona masaajid kaliya la iska dhisin sidee u helnaa foundation oo ay dadku ay wada heli karaan u dhaxeeya badbaadinaya bulshada la iska ilaaliya ma garanaysaa qofkii in la bushkareeyo ama la yiraahdo ama khamri baad cabtay ama kalaab baad aaday iyo carabtana arkaysaan Sacuudiyaanka markay wadamadan yimaadaan college waan aaday and I seen a lot marka waxa loo baahan yahay in la eego sidee loo badbaadin karaa caruurteena iyagoona lagu takooreynin khaladaadka ka dhaca ama anigu khaladaad buu marka waa wadama aynu nimid khaladaadkana ay caadi ka yihiin system uu jiro Nicolas Zaki yes trust me Malika is my best friend absolutely qaybta uu ka hadlayay baan u dhiganayaa jawhari kalimaadka uu dhahay dabcan waxa laga yaabaa inuu gadaal ka dhigista dad ka dhacay haddaan ka dhicin way maqlayaan ustaadku wuxuu yiraahday halala tashado islaamaha ma qabo mana soo dhaweynayo gabdhaha waa maxaad ku diiday wadaagi karaa oo la wada hadli karaa waa la wada sheekaysan karaa laakiin markay timaado talada iyo go'aanka qof baa iskale wax walbo meesha ka dhacani cid baa mas'uuliyaddeeda qaadaysa marka waan soo dhaweynayaa hala wada hadlo laakiin halala tashado ma soo dhaweynayo macan cumar waxa uu tilmaamay nimanka Soomaaliyeed inay fadhiyaan fadhi ku dirrada waqooyiga America waxaan malaynayaa gobol aan tegin aad buu u yaryahay ragga Soomaaliyeed goobaha lagu qaxweeyo ma fadhistaan waa dad aad u shaqaysta xaasas badan leh caruur badan daryeel badanna looga baahan yahay aabaha Soomaaliyeed galbeedka jooga qaasatan Canada iyo Mareykanka ma aha mid micno daro ama bilaa macno meel u fadhiyo saacad kasta oo meel u fadhiyo aabaha Soomaaliyeed dhaqaala ku socdo lacag baa ku socdo sida macalinku uu sheegayo marfashiyada la fadhiyo iyo fadhi ku dirrada taasi waxaan u malaynayaa inaan waxba ka jirin daliilkeedii caddeynteedana ciddii u baahan waa usoo fax garaynayaa waan la wadaagayaa wixii aan
ka nowdgareeyey aabaha soomaaliyeed inaanu fadhinin meelaha fadhi ku dirrada walaa Minnesota walaa Seattle walaa Columbus Ohio meel kastaa timaado ragga soomaaliyeed bilaa macno uma fadhiyaan taa iga qora system kale wuxuu jiraan siyaabo kale wuxuu jiraan tan kale oo macallin Umar uu tilmaamay wuxuu yiri